نعصوكم ايسيقن نبرد قرصونيو نعانيقا هديني يقول بين الصدر نبض لما وداقي. بسم الله الرحمن الرحيم. halka waxaan ka hadlayaa Cali Baabuur Xaaji Muuse. waxaan anigu markii hore ahaa oo iskuulka ka galay markaa in waan ka dhaafay hore berbera anigoo standardsigiisa aydka laga bixi jiray ayaan iskuulka ka baxay dabeedna waxaan shaqaale ka noqday dawladda waxaan ahaa xogeeye degmo waxaan ka noqday kurtuwaari ka bacdi ciidamada wixii shaqaalaha lagu wareejay dabeed anagoo militariga ah ayaanu galay dagaalka waxaanu ka galay goray meesha la yiraahdo anagoo ciidankii jabinay oo ka adkaana maalintii dambe aanu gurbad weynay xoojin fara badan bay keeneen dabeedna madfac bay ku dhacay ciidankii iyagina waa la kiciyay waxay qaadeen lixnin dabeedna markay cabaar ay wadeen baabi'am nagu soo dhacay dabeedna waxay yiraahdeen ninka yool baa haysta oo walidi ku arkaya way dhigeen nimanka way ga tageen 12 caanamal baan halka aali anigoo 12 kii casho halka caanamal Allah ayaa waxay yimaadeen habeenkii waraabe afar habeen markii aan yurtaahayo aan markii dambe yuro la kari waayay ayaa markii dambe waxa ay soo maray nin barida ku hadaafaya oo anigu wala soo qaaday halkii hore laga soo qaaday lagaga tagay afarta habeen markuu cidada jiifay isagoo barida ku gurguuranaya ayaan arkay isagoo dhaafaya tuuti waanu yeeray ninkii waa yimi wuxuu ragii waa la laayay aniguna meydkii baan isku dhex rogay waxaan la mooday inaan meedahay ka bacdi afarta habeen waxaan jiifay milcda xalay baan barida ku soo hadaafay maxaad war haysaa anigii wareys waxaan ciidankii maalintii annagu ay ku dhacday xabadu isku baanin baynu ahayn walay soo qaaday halka 6 nin baa keenay ka bacdi markii ay dhigeen way iga tageen waraabahaasi waa waraadkaasi waa waraabe xabad waraabaha baa timi wax kale aan hayaa ma jiraan geed kale dhinaca kale waan ugu wareegi laahay haraadna ilaahay wasoo keena wuxuu ugu yiri waxaan ii soo gur dhagxan ninkii baan ciirsi mooday barida ku hadaafayay dhagxan buu barida igu soo guray meeshii markuu kare baan barida ku hadaafo deebal sacoowadi aragtaan waxba ku fari maayo baridii buu ku hadaafay ninkii habeenkii sharaad ayuu jidka ahaa oo ay shanoo tahay ayaa subaxii waxa helay niman qutiya hadduu oran lahaa Cali baa halka yaal ama nin baa yaala ba afkaranayn nimankii halkii bay beerka la dhigeen habeenkii lixaad yay qaadeen ciidankii baa loo geeyay markii ciidankii loo geeyay wuxuu Cali Baabuur baa halka yaalay cadowgiina waa hor fadhiya ciidana way ka dambeeyaa cadowgiyo laba cadow dhixood baa jiifa dabeed ninkii gaadha loo ciideeyay oo la qaaday waxa la soo diray 16 waxa la idin kala jiidadiisi keena markii cabaar soo socday bay ilaaha casaystay bayaan yar seexano waxa la seelay cadowgii waa la isku riday 16 nin Soomaalida ahaa waxa laga dilaynin ninna waa laga dhaawacay marka waxa la geeyay 15 kala baxay oo mid dhaawac yahay waxa la ogaaday inay seexdeen habeenka waxay ii tahay 7 hadalku iga soo bixi laayahay dabeedna subaxii waxa la soo diray habeennimadii waxa la soo diray 40 labaatan waxa la yahay xagga soke markay maraysaan ku hara labaatan ha gudubto ninkii la jeedadiisa kaato markii ay labaatan soo dhaafeen cadowgii labaatan halkii ku hadhay waxa ku jiray inaanu ilmaadeernahay saaxiibna aanu ahayn oo Faarix Bidal yiraahdo labaatan kan marka soo doonaya soo dhaafay cadowga in yar markii la soo jiray anaan hadalku iga soo baxaynin dhagax aan ku tuuray waraabahana gacmihii ii qaadmi waayeen ayaa la yiri waryaha laba cadow dhexdii buu ninkii jiifaa shalay dhawaatay nimanku dee ciidanka inaga laayay ninkii baanta ma noolaa iska noqon Faarax waa diiday wuxuu ii soo maray Faarax xoogaa waan arkayaa isagu sayma arkayo marka waa abaaro ilaa 9kii ama 3dii ninba sidoo yaqaano markii aan isiri u soo dhabaalay dhagixii tuuri kar waayay ee gacmiina ii dhici waayeen Faarax way dhaafay koox soconaysa oo qoladii dambe ah oo xabashiya ayaa yeedhay maqashay waa u dhaceen dabeedna waxay ku rideen rasaastii baa la isku riday saga ku horeeyay nin sarkaalkii watay buu ka dilay Faarax halka ninna waa ka dhaawac labada markuu dhigay
yaa 28 kale waxay ku sameeyeen dabkulmis faarax halkaasuu rasaas badan ku dhacday dabeed waxay nimankii ogaadeen inuu nin doonayo magacaygana waa qabsaday raadiyana waa ku dhacay magacii yaadhi nimanku waa soo kala baxeen iyagoo cali baabuur taa haya ayay yimaadeen halkaa iyo nimanku iga qaadeen dabeedna waxaa la qabatiyey dhakhtar waxaa lay dhex dhigay xabashidii aanu laynay oo wada dhaawaca markaa waxay moodayeen cali samatar yeedhii laygu yeedhaya cali lalahaa ayay markay qabsadeenba waxay heleen isteeladii ciidanka markaasi waxay moodeen darajo sare dabeedna waxay ninkani waa dhigbaxay waa cali samatar iyagaa waxba ay weydiin bay markiiba taliska markii la geeyo diyaarad dalbeelo waxay dhaha cali samatar baanu haynaa waana serious diyaarad almukatara la keenay halkiibaa diyaaraddii layga saaray herer baa laygeeyey dabeedna dhakhtar baa lay dhigay wuu buuxay dhakhtarku nin baa sariirtii baa laga rido la yidhi cali samatar baa iga haystaane anigii lay dhiga askariga gaarhka iga hayaa qoriga wuxuu ammaanku waa u furan yahay anigu markaa waa yar dawaqsanahayoo aad miirkaygu caadi ma aha waxaan sida waa ninkan sita qoriga sidaa kugu leh muxuu kugu furi waayo qorigaa waan leeyahay labada gacmoodna sayloon iyo dhiig baa igaga rakaban xabashidii meesha jiiftay ee kuwii aanu laynay ahaa ayaa waxay leeyihiin nin kale hanala ka dhex qaado haddii kale waa dilaynaa subaxii baa layga qaaday waxaa la geeyey qol kale oo gooniya askarigana waxaa la yidhi xaggaa dambe hore istaagoo guriga hagu gelin waa 2 qol oo kala dambeeya qolkii hore lay dhiga dabeed 4 habeen markii aan jiifay baa waxaa lay geliyey operation markii aan subaxii show dagaalkiiba magaaladayba subaxa dagaal baa socda waxaa xabadi ku dhacday in aanu saaxiib ahayn oo aanu isku ciid ahayn halkaa waa idinka dhaafay markaa hore ee nimankii faarax la dili doono ayaa nimankii noqday waxay yidhahaan faaraxna waa fikaday haddaba ninkii laygu dilay calina waraabaa cunay aabbahay baa warkii helay sidaasaa loogu geeyey haddana aabbahay wuxuu helay ninkii isoo mari jiray wuxuu yidhi inankaaga cidluu yaalay ciidanna waa ku maqnaa oo odaygii wuxuu yimi ciidankiibuu u yimi isagoo oo la jooga ayaa odaygiina waxaa la aasay lafaha la aasay waa lafii faarax bidde marka anaa lay moodayaa odaygi waa ku samray waa ku samray aaskii iyo lafii la aasay isagoo aabbahayna anigay moodaya ciidanka kale ninkan markaa Muxyidiin baa layaa Barra Cali ee saaxiibkaya ee markaa la soo qaban doono subaxii lug baa go'day waxaanu qabaa ninku maalintii aasay lafii aasay inaan anigu ahay markii ameersaday baan xabashigii dibadda taagnaa xabashi garan maayo yidhi waaryaha gaalkow noo keen waxaanu ku kaadino hadalkaygii buu gartay wuxuu ninka hadlayaa waa kuba doonaysaa baan idhi waa Muxyidiin ninka ili kuba doonaysaa markaasi ninkaan mooday miyaa oo waa macali baabuur biyaa buu ninka hadlayaa war waa la odhan jiray kubaad ahayd baan ku idhi ninka isagaan ii jawaabin yaa waxaan arkay isagoo ooyaya war maxaa ku helay baan idhi wuxuu iigu jawaabay war miyaa dhita dawakhaadana dee dhaawaca iska leh ninkana lug baa saaka go'day dabeed waxaan idhi war haaye maxaa joogay ifkii wuxuu yidhi aabbaha baa noo yimi faarax bedde ayaa aabbaha baa noo yimi waanu ku doonnay dabeedna lafihii baanu u nimi lafihii baan wax ka aasay aabbahaana noqoy ee meeshu ma aakhiraan joogaa waxaana Muxyidiina waa aakhiro qolka aad joogto waxaa ku iman doona malaa'igtaa kuu iman doonta haddaad afgaran weydo anaa kaa turjubi bal imikana hadalka yaray waxaa u shaqaynaya ruush oo ah surgical oo u shaqeeya xabashida nimankii caddaankaa ruushkaa markay soo galeen ee ninkii u tageen oo dhaqal cadda sitaalo kii wii dhakhtarka ahaa ayuu wuxuu mooday malaa'ig Muxyidiin isagoo yaabsan ayaa la hadleen uu afgaran waayey dabeedna xabashidii baa tidhi nin kalaa yaqaan ingiliishta ah loo yeedho naxaskii baa layga qalo saaxiibkay waa lay geeyey wax fiicanba ma weydiin habadii goor bay kugu dhacday wax cuntaa ma cuntay wax iraaba miyaad qaadatay intaas buu ay weydiiyeen waxaanu ku soo kala noqonnay gogashii Muxyidiin markii dambe aan warrabaan waryaa Muxyidiin
meeshu waa dhakhtar waa Ethiopia nimankana malaa'ig baa cadaan waxa weeye waa ruushkii dhakhtarka u ahaa anna ma dhiban sidaa saad ogaalisa markaanu muddo joognaa la soo galay magaaladiiba dabeedna waana lala qaxay diyaarad baana la saaray 15 nin oo kale oo ninba meel ku xidhayay iyo labadayadiina hadiis baa la geeyay ka baxayday markay dhacdaana la soo qabtay god baana la ku guray 940 nin baan godkaas ugu nimi intaana baxsanin ayaa anaga oo 3 sano markaa xidhan oo laba qol ku kala xidhan oo markaa godkana la ku ridin waa inta godkana la gelin oo 25 meel tahay oo ka baxaydii la qabtay 17 ninna aan ka mid ahayna markii hore la qabtay ayaa halka anagu ku xiran ayaa waxaanu maqlay madaafiic ka dhacaysa magaalada nimankii gaarka ahaa baan la hadlo waxaan waa baxay madaafiicda dhacaysa waxa la yiri waa ciid Ramadaan baa dhamaatay muslimka loo dabaaldegay madaafiicda sidaas weeyii ninkii haystay jeelka yaa waxaan ku uri war dad muslim aanu dhahaye aan ku ducaynay ma ogolaanaysaa salaada maxaan idinka helayaa buu ilaahay inuu jannada ku geeyo yaanu ku bareena janna ma rabe waxaan doonayaa darajo ilaahay bay weydiinaysaa haa baan idhi haddii la waayo ma saxaysaa buu yidhi wixii kugu dhaca haa baan idhi wuxuu naga furay albaabkii maydha buu yidhi biyihii Soomaaliya biyahaasaa noo xiga dabeed waxaanu fadhiisanay oo baydhanay dabeedna askartii gaarka buu nagu wareejay waxa soo dabeedna uu ka furashay 20 kale intay meeyanayeen buu noo yimaado wuxuu igu yiri aliyo inaad saragtaan dawladdu ma ogola waa lidii xadayaaye nimanku xagga dambe ee gadaal bay gelayaan xabashidu ragga 20 hawada hadina waa yahay baan idhi 16 kayga hore 17 kayga anigu iimaan baan ahaa oo waan tujinayay waa ku talgalay inaan tujiyo 16 kale safka hore galeen 25 buu xagga dambe geli ma jeesan karo markii aan salaadii dabcada inaanu gallo ayaa go'aan gaaray waxaan go'aan ku gaaray waa nimanka salaadaha tujini iswaraysta dunidu si ay noqon doonto warbaahisay salaada isku waraysi baan galay waxaanan idhi nawaytu usalli ragcatayn ciid alfitrati wanima yahu annagu waxaanu nahay 17 nin fitrati mu'akkadati 17 kayagaanin intaas waa isaaq intaas waa daarood intaas waa hawiye Allahu akbar sidaan marba u sujuudaynay ee aan warkana hoosta ugu dhiibayay ayaanu warkii 17 nin ku dhameeyay haddaba waxa la yaab noqotay anagu warkayagii maqle nimanka si ay warkoodi u heli lahayn dabeedna waxaan bismillaahir rahmaanir rahiim amiya tasaluna ala nabayil aziim wan walawba markaad sujuudsanahay ninka ka horeeya warbixintaada u soo dhiib Allahu akbar dabeedna waliba ninkii ka horeeyay sujuudsanaa ayuu warbixintii soo siiyay markii aanu halkaa isku waraysanay ila gaalku garan maayo waqtigaanu ka baxnaa buu arkayaaye sunna iyo doona kala garan maaye oo ay casarba ku dhawaatay ayaanu salaada ma ahayna waanu suuraysanay sidii wax ka baxayna ilaa salaamu alaykum waraxmatullah dabeedaalku wuxuu waxaad yeelaysaa alo waa tukateen balanna waynu lahayn waana adigi saxeexay haddii la waayo darajada in dhibaatada ku qabsata adigu leedahay dee sidaa ogow waxaan wabla faatixada ii marac waa maalinta lugaaday muslimka hadduu isku calo yahay ilaahay aqbalo in gaalka ilaahay darajo iga siiyo bal faatixada bara faatixadii waa dhabarro waanu kala xaroonna markii guryihii lagu kala xereeyey markay tahay 12 saac yaa laba xabo furna ninkii la siin jiray howliya bari 12 mar yaad ku sugaysaa 12 bari markay gaadha baa lagu siinayaa laba mar howliya shawliki markii loo xaadiri balabar ilaahi الله يسلع أول قرب حياة أيو نكي يبي لا قديم يراها الله وحي علي إسكامرنا صومالي قدرنا كبير صومالي إلهي وصاحب درتني وان هلاي الباب كيو ممنوع على بعض ربان ونحاول فرها بيكي وخلده أيو يلفرا شواب بوس لفرق هل فاك تشوفه إيوه استيك سيجارة
بنوسيفش دبل مركي ودسمير كقود هذا نفرودي أيان أنت كلاعدي لمك كلاوجي يسيار كباقي ويقول صون نقله ويقول أرورته وحادي لسان وحن هلبادي سينا يا وزير مبرية يتشاط ولد ميدان سام الباب كان اللي تكحل مايو دبل سجال علي يسوي شيء فوستك لقوا أنه وضوء كلي حابنا وقاري باسدي لبده غوري hortadi ba xaabadii la dhigay adhigiina lixna iyaga qolada baan kale la wadaga badayina qasha saddexna annaga cunu maayaan bismillaahir rahmaanir rahiim baan ku gooracno iyagu xabashadu ma cunayso halka culahay noo dhaafi waa hilibki qiiqda markaanu maraqay ka bana caloosha bana la kala gooyi ninkii halkii baan ku saaxiibnay ala kulli xaal markii uu darajadii helay ayuu yimi maalintii dambe wuxuu cali ليلى فلك اسكابر ضيق درجك ليلى هي ودي وحاني وروحاني ده هدي لو وايو وما دباتو هدوتو بلا كوكون عسوبة وحاني لي وبل أكادي وبل وكاسور إلهي باول هذا أنا درجتي ودي بي لما كيبا يدي وبل هي فاتحة يعني بينو عسكر هنا بل اسكا أكبر ورقد كيف بالي يقلن دبل سيدي قراص بانو قري وحان كو قري على تلا على سجل الا يهديك 1000 مره كنت شير الهي كنت دليو دعد لك كو سدكتو والله لابي waxaan idhi 3 casho ha foodhaqan oo kaadi ha iska biin alaabtaana meel dhig waxaad helaysaa 3 bilood iyo habeenkii dhuxul baan gidaarka sida 1 iyo 2 ugu qoraa وأنا دعينا إلى هنا قصاصترو بس صدق يلا باتها بين مركي عادو حالي نوع هايت يا بانتي أفريقيا الوطنات لو حدري نكي واتهاي مركانا وحو حالي درجو نكي وحو أها مركو هوريك كبطن لبدي درجو وحو نقضي قاشان لي يا قاشان لحي هل كا إساقو مرأيه أيو بانتي دبي يلمي wuxuu ugu yiri cali leeyla falik mid kala doon ninkii waxaan siisay hadaba ninka stabs kaga dhigta waan ku yiri war dhageyso ilaahay wada hadalay ilaahay wuxuu yiri lama ogola halka ku joogo hadii kale ha muslimaniku haduu muslimo waxaanu siilaynaa madaxweyneba lacag igu bedel bi lacag lama ogola baan idhi ninkii arrintu waa ka xumaaday ninkaan saaxiibka ahayn isbedel baa ku dhacay maalinta dambe balwad waxaad wadayso muslimnimada macatabka goobaan idhi wuu gooyey anuu arkay ku kaadi baan idhi wuu ku kaaji timirtii waxbarasha la bilaabayaa baan marka hore ninkii ashahadaan baray farxabashu ku qoranayaa markaana farxabashiga waa barta markii uu halka ku dhamaystay waxbarashadii ashahadii ayaa intaanu 2 wiig baqay ay u timi korneyl buu noqday maalintii dambe ayaa naagtiisii su'aasho waxay tidhi war 3 bilood muddo aan gaarin yaa 3 jeer dalacday dagaal lama tagin sidaad u heshay darajadan nin weliyo ku jira maxaabiista ayaa ilaahay wada hadlaan ilaahay weydiiyay waxaanu igu yiri migistaad ka qabsanaysaa madaxweynaad noqonaysaa na cidna ha u sheegin midka kale muslim biiro waan iska musliminaaye waa muslimaya waa baqaylisa ma adiga oo dawladda ah oo raaskiya oo korneyla ayaa diintii gaajada aad gashabay oo ka baxday diintii wanaagsanid waana diga furan tahay waana ku dacweynaya ninkii way dacweysay maxkamadda looga yeelay waxa la yiri ma ka noqonaysaa arrintan أصوت السنة يا بيد ويقول صندوق ورناك تبي كشفتوا على رتو شجع محايا لا كوات كسباني وكوات كستي سدح كيربا لسيه بربا إن مدعة ولا صندوق مركز سالة يلي ناقتل وكافران تاي قولي قرب بتجي كرتيد أذوقنا وحلا حلاي لحب الوضع حرقة شيل بالجيي نكي حبس يجيبوا قلا صلاة ديبوا بلابي قراءة سهلك وكوتا وعاد وانا لو سو بدري ميدي كاري كود عضي والله بحد قلاه
ninkii jaanis ba waa la sii waayey dee muddaa baa helay nifaas iyo laydhe ninkii nin xun buu noqda maalintii dambe 6 bilood ka dhammaatay ninkii aanu saaxiibka ahayn ayuu xabsigii ka soo baxay sogaan magaaladii soo gaadhin ayaa meel gaari ka dhaqaaqay waxaa ku xidhan $4,000 malaa dadkii qaxootiga ka imanayay xagga ka imanayay ee dhoofsanaabay ka dhacday baan lacagtii buu qaatay dabeedna xaafadda muslimku degay muslimkii wuxuu ku yidhi guri ha layga keeyo waanan muslimay nin kristaan ahaa waan muslimay dee waa kaa waa la soo dhoweeyey aqal baa laga kireeyey khamiis iyo koofiyad iyo cimaamad buu qaatay tusbax buu sitaa ninka nuurka ka baxaya waad yaabaysaa iyo joogka halkaa markuu joogay oo muddo ku noolaa oo markaa xabsiga uu ka soo maqnaa bil ayuu ninkii wuxuu jeclaystay siduu iigu iman lahaa mana iman karo markaa wuxuu cid u diray ninkii xabsiga haysteen lagu bedelay ninkii waa sheekaysteen wuxuu yidhi ninkaasi aad iigu keeni lahayd iigu keen ninkuna waa ninka darajadaba ii qoray adna waa kugu ballaminaya ninkii galabtii markii la kaajisiinayey buu dabadda igu raabay wuxuu yidhi ninkii Solomon buu la baxay Solomon saaxiibka ahaa uu ku soo salaamay waxaanu yidhi ninkii ii keen gabarta sidaa kuu qaado isku rid xanuun aroortii baan ku dhiftay salaadii markay ahayd abeed igiri sabara bihayn cabanya waa lugtaa ay jabtay waanan liitaa waxaan doonayaa caafimaad waa layga qaaday waxaa lay geeyey isagii baa lay geeyey halkaa markaanu ninkii isku nimi ee aanu iswaraysanay xaafaduu tegey dabeedna laxshow dumarku dabceri ay ku hilmeeyaan buu soo iibshay hadda buu yidhi ka shaqeeya ninkii lacag buu siiyey waa noqda ninkii kale ee uu igu bedelay jeelka haystay na waa igu ballamiyey ninkii door buu yidhi darajadii ninkii faataxadaanu dee wadaa darajo kale ma lahayo ilaah bari wuu helay markuu hal mida helay ayuu yidhi tii $2 tii baa muddadii dhaaftay ooba la waayeba dabeed ninkii wayla culoobay wuxuu yidhi aniga waad xaadsinaysaa wuxuu igu xidhay guri gooniyo qola nin askarigana wuxuu yidhi ilaali katiiladana habeeniya maalin gacmaha aad kaga xidhnaato isagoo le darajaad sii weyday arrintiisu tahay ninkii baanu saaxiibnay ilaalinayey katiilibadana igumaba xidho raashinkan oo gurigiisa looga keenana waa la cunaa 3 bilood markaa ku jiray meeshii oo aanan cid aan la sheekaysto iyo wax kale midna aanan hayn saaxiibadina ka imi ayuu gaabtii daba kii saaxiibka ahaa wuxuu yidhi ee ilaalinayey maanta waa axad khamri baan doonanayaa nimankii kale waa kuwan sarkhaasane hilibka cunaya hilibka ceeliya bay isku cunaan iyo khamriga markaasay afayaamaan khamraan doonanayaa sii joog gacantuu katiiladiiga xidhay gurigu waa sakatuuro gurigana waa sii xidha seexaan isidhi markaan isidhi isrog ee gacanta igaga rootay katiiladii toorad halka taalay oo shaah igu siiyey yaan furay taarkii gogolka hoose isbirika katiilada geliyey waa soo jiiday waa furata markay katiiladii furatay ya ilaahay wuxuu igu dhaqaajay albaabkii laad baan ku dhiftay waa isku dilaacay gudaha isku soo noqdo markaasay igu baqday weynii markaasaan idhi agana ma haysid oo dhaawac baan dal garan maysid maxaa soodiga badda galay haddana waxaan warday guriga intii lagu dhex diri lahayd ilaahaga ku kalsoonow inta la shaahatay baan istuuray anoo galgalanayo sida isku laba rogaya ayaa beer gala beertu waa beer dheer waa ka baxay waan intuu dhan baa soconayey gabalkaa ii dhacay habeenkii baa gooro xidha 12 habeenkii baa soconayey waagu markuu ii baryayna waxaan galay buurali habeenkii dambe waa ka qariyaysta adigu ilaahay kugu daalay markaan marayay 5 habeen ya habeenkii laxaad anoo ciidamadii Soomaaliya ku dhow ayaa waxaan la kulmay ciidan hor fadhiyo ciidan ka yaro habeen walba Soomaalida halka ku arbishta marka arkay inay xabashadiin baa dib u soo baxay waxaan sidii wareegii ay wareegaya beer galay beerta waxa ku dhex jira nin 3 aliflaa oo ciidanka ka tirsan oo la yijaab soo gur wuxuu sitaa bahal ma jala yiraahdaa
oo qoolaaban ninkii markaanu halkii ku kulanay oo arkay ayuu horta dhaxay anna tuutii baa sitaa ciidanka Soomaaliyeed isla kii Itoobiya sitaa timahana halka joogay nin nool bihi ee habeennimadan uu himbilaya tuutaha iyo timahan ninkii uu dhaxay wuxuu mooday nin gaata socda inaan qabanayo aniguna ka naxay markaanu kala dhaxay wuxuu igu hadlay afqoti wuxuu igu yiri abo isadiftay xageed ka timi tabe waxaani siba wariya amariya tijalaal bataqana xawashiga haabu yiri inta markaanu isli oo neefti ka soo baxay isleeyahay wadin Itoobiyana ayuu yiri godaya saaxiib keed mada xageed ka timi isi chaka isi daabiya kama daabaan tuuradan ka yimi tuurada haduu yahay waa tuba garamaya magaceeda haddaan sheegan lahaa nin Itoobiyana oo Soomaaliya wuxuu weydiinayaa sharci wuxuu kale weydiinayaa balanbaad iyo aqal haddaan ciidan Itoobiya sheegan lahaana dee jarajaradii weydiyaa markaan ma garan karo ninku wala waan isma baqaye hadalkii wuxuu yiri keed bada xagaad ka timi waxa ka yimi tuuladan xagaa socotaa buu yatiraale isi taaka yatiraale baa xagan horaan u socdaa wuxuu meesha ood tahay wadam male soo noqo wuxuu doonayaa ciidankan aan arkay ee Itoobiyaanka ee uu ka tirsan yahay aan soo arkay inuu xaqiisa ii celiyo waxaan idhi isi magargaaraani oo qaalay alif ajab gariyalam ana aqaan wadadan marayo ee raalahow ninkii markuu 3 jeer sida iigu celiyay hadalkii ayuu wuxuu siiyay ninka u hajab wuxuu yiri si wariya dhegaha gumad doloolaan oo hadalka ma maqlaan haa baan idhi inta baato qimala hal dara muu yiri oo iyada wasayow hadalka meel hadalku ba ka degin soo laaban kule waxaan nin baatihin ninka haw baqanin waxaan sima wariya anta jura nagarta samaajow adigu dhegaha gumad dololaan hadalka ma maqlaan haa buu yiri ina tibida waslata qimala hadrobani oo iyada wasay dhalay injiraada ma dhabaya watata Soomaaliya askar Soomaaliyeed baan hay holataya nagar badaatay madale hadii hadal yamada xabad baa iman sheebka gacanta geliyay masar baa igu tira ninkii wuxuu siiyay waa nin ciidanka ka yimi idii hor fadhiya dee baskood bisita ninkii wuxuu sitay bahal bacha la yiraahdo haduu mar qura sidaa ku yiraahdo kurtuma ku maqan tahay ilaahay wuxuu ku shubay biyo ninkii ishi bu ku waashay isqabad marid bacha tiro baan iri dhaqso dhig seefta luka uu dhigay dib u baxbaan iri uu baxay machadii baan qaatay waxaan si taad madaxa ku dhifato labada gabdhood sii xisimo oo sii cunba haddana waxa iri bal ninka inuu gaal yahay inuu islaam yahay bal kala hubi waa tahay ma maalod baan diinta waa maxad islaam buu yiri milka islaam tiro ku dhawaaq baan calaamada islaamka uu ashaatay markuu ashaatay way iga xaraatin mawday dilkiisii dabeed waxaan dabcan ka inaan fuulo oo ii geed galiyo fadhiisaan iri labada garab baan ka labada god ka kala dhaxday amal si uu tuurta igu qaado machadiina waan haystaa ninkii markuu cabaari waday oo uu ila ordayo oo aan dawaqsanahay yar wareera waxaan dayaxi ila noqday hortayda ahaa inuu gadaal noqday waxaan si ninku ku celiyay waxaan hadda waa intaad kala saxmayso bal ninka fariisi qosh balbaan tiri sharafta bal naso intii aan ninkii sad fadhiinaan islaha waad kala saxmaysaa yaaba soo sii wareera waxaan arkay ninkii aan u sheekeynaya askari Soomaaliyeed banaha dagaalkii 7 waa lagu qabtay waa ninkii moodayay ciidan kale qiim ninkii oo dawacayba inuu soo boodo sida ark ila ogaa inaan maxbuus ahay ayaan miirsaday kaasaan inta baata fadhiso oo uu fadhiista waxaan korneel Soomaaliyeed dagaalkii baa lagu qabtay 7 waxay soo daayeen iman kamida ciidanka Itoobiya dambi sabab ay yiraahdeen gurigan galay gurigii bay muddo ugu hayeen gurigan iyaga jabiyay katiiradii la jabiyay iyagana soo diray imikana wax kasta waa lagu qabanaya Soomaaliya hadda tagtay deena mari wuxuu yiri ninkii ma tagi karo waa tagi kara laakiin dadka la leeyahay Soomaalidu habeen walba halka ay lagu arbistaa waxaad u soconaysaa 3 saac iyo badh isida وسيدايي وانداريي وآمني على كل حال نكي مركي انداريي سيدابا أنا اسكو دارسنا إنانو إشيغين ولا بدي مدري
ayuu markiiba siidhi afuufa dabeedna waa yimaadeen madaafiic bay ku riyeen aaggii hore anna waan aag bedeshay soomaalidiina way soo jawaabtay markay madaafiicdii maqashay 2 saac baa diradorigu dhacaya hubka dhulkiiba waa gubtay dabeedna waxay ninkii waa aag bedelaya aan kooraa ka baadhno nima ay wataa soo agbaray aygii la uriyay waa la qabta adigu waa la celiyay habeenkii yaa waxaan galay waxa la geeyay harar guri baa la igu xidhaa waa riyooday waxaan ku riyooday anigoo wadankii jooga dhowr jeer markii aan riyadii igu soo noqotay waan fadhiistay waan ayaa caawiya qarandi ka dhiga oo marka qarandida uu ka dhigo marka dhulka qodde aad tagto gurigiisii gurigaagii tagto yaa hadana ka dhiga cali waa ku madadaashay ilaanin rajeeyay inaan taga baan ahaaye qarandi baan ciirsi moodo halkaasaan fariin ka faray bal ku soo dhawaada waxaan faray waxaan idhi qarandida balquustay adiga qodaal badan afka qalabku haysto buusaya ciide dhulku kala qaboone meel khafiifa dayo ka qabsiyo waasii qaflaysaba qumatiga u soco hawle xanqarare qorolowdu sii hoyo waa magaaladeydii markaasaan si haddaba gabadha hadday manaamkan ugu tagto waysasi waa la dardaarmay yay qofin gabadhuye qumatiisku taago qofsadiisa hadalo quyar wuxuu sheego qaslad weeye hadalkuye yoo ka ququbanine qadeta waxaa tidhaahdaa anuu qaradi baan ahay qabowrahaanu hoyda dadka kala qarsoon baan fariimihiisa qaadaa waninkaasna markaana qaradidaas aan faray fariinta markii aan aalay cidlada ee aan sakaraaday buu iibe wuxuu taras iyo hidh waxaan ogaaday gaalku markuu taras iyo hidh leeyahay inuu leeyahay ka oo dhaqso oo soco oo haddaan socon karayo maxaa cidlada dhiga 12 caaramal waan yaabay marka horta naftaan la hadlay sakaraadkii nafyaa isloonaatayo waadi sida taaye safaalooyin baan kugu arkaye say mahay gelinay sabaroonogow talaadoon subax baa wacayne waa sakaraadkaa nafta la hadla waa tahay hadday taladu kaa filiqdo aad toosi kari weydo 7 kaarabiiniyo hadduu toob iskugu xayto turuqyo halugaayo hadduu tiirka dhexe gooyo adigaan tallaabada karayn cadow turkaas iyo tanas iyo hidhiyo toro sheego oo tabti amxaar lagu yiqiin ayga tuurtale markaasna taasaan idhi waa tahay waxbaa la damcayn layga qoro dabeedna sirtu waxay ahayd inaan sheegin ciidanka berigaas sidaasay ahaa jirtay gaalkii wuxuu yidhi sheeg garaadadaadii gaadhigaagii aad ku timi waxyaabaasi weydiiyey dhaawaciyo dhibaatadii goraygula dhacay ana dhibana noolayn dhiiguna wardhama yahay kuwan dhowranayena markayga dhaqaaqeen waxaa dhabigu soo yidhi dhoorwada amxaara kolkayla dhaqaaqeen wax lay dhegaystaba wax lay dhirbaaxaba dhegalayga duubaba waxaan dhuunta mari karin dhihi maaya baan idhi gaalkii markuu yidhi geesigii ku dhalayiyo gacaladaadii hooyiyo garidaadii dumariyo gadhigaad ku timi iyo gaashaan lahaagiyo gutadaada ii sheeg ammaan ku gowraco yaan tala garfeeyo go'aan waxaan ku gaadhay gesigeeri iyo nolol uma kala gudboone garan maaya baan idhi markaana waxaan diiday inaan sirtaa sheego maalintii dambe waxa dalkiiba waa laga baxay markay noogu tahay ee aanu labageriyood ka noqonay waxay noqotay markay dalkiiba dib baa looga baxay la qabsay injirlayda amxaariyo Soomaaliya isqilaabo olol baa ka dhex duulay inta oodaa goysay ashaada taqaana ila Allah tiraade ummadii nabigiya kolkii aan koolkaynay atareerega duuliyo arbeejega dhacayo
orada ku xorayna addikiina ku beelay waa islaamnimadeenno annaga ka adkaana ilaahay amarkiisaan cidna oofin karayno iblayska u shaqeeyaa maxaar baa ka adeegay maxaanuu yahayaayo ardaay urguba taqabaayey allaale kaalay u noo yabay waa laba calolyo geeridu maalintaasay noo ahayd dalkii laga baxay waa tahay xabsigu waa silsilaado sima oodan weeyo sina laguma dhaafe sawirkiina gooyiyo gaajadiisi loonayd siliciina soo maray badhkayaa ku siibto badhna waa salcaameen waxa aan sugaynaa inaan subax dareera ama suurtu yeedha waa laba sallaano midna surinka aakhiro sasarkiisa leeyahay midna uu sarreeyo sabanadan la joogaa hatirkeenna uumiyo suuradaha qur-aankow saxariirta naga saar markaana waanu ku ducaysana waa markaan lena ilaahayow halkaa naga sabata saar waa tahay halkaa waxaan idinka dhaafay markii ninku lay qabtay ee lay keenay baa lay waraysta warkii markii aan sheegay siday ahayd waxaan idhi aniga waa laysii daayey may waxaa laygeeyey magaalada waxa jooga nin soomaaliya ninkii waayiba wuxuu igu yidhi nin idhalaa baan ahay beerta ahaasoo dhan ee qudaartu ka baxayso anaa leh ilaa 100 qofna meesha waa ku noolahay haddaad dhibatan raganimaad samaysay ee dee ilaahay ku kasoomo inaad ka sheekaysana waa laga yaabaa buu yidhi ninkii lex buu iibshay u qala buu yidhi intii lexdii la qalayuu jaadkii keenay markiiba waa layga gaadhsiiyey lacag buu siiyey 700 oo bir ah diyaarad baa timi waa lay qaaday waxaa laygeeyey heran waxaan idhi hadli maayo ilaa migista ii yimaado waa tahay ninkii markii lay xidhay calaa kulli xaal balad in wax laga qoro waa yahay waxaa la hayaa markaa ninkii meesha u sarreeyey iyo ninkii gaadhka ahaa waxaasi kolley waa lagu dilayaa cid israaci waa tahay waxaan idhi 13 nin ha la soo qabto lacagtii ninka soomaaliga siiyeyna waan sitaa hilibkiina waan sidaa oo qaar shiilan maadhiiso shiila dhaxdii ninka ii qalay soomaaliga waxaan idhi lacagtan iyo alaabtan waa exhibit waa alaabtii laygu jecsimay nimankuna iyaga isii daayey waxaanaan leeyahay migiste isagoo yimaade mooye gobolka waa wada jaxeewaysan yahay cid ba la hadli maayo migiste wuxuu soo diray maxkamad military ah waa tahay halkii markii ay yimaadeen ayaa la yeedhay waa lay wareystay waxaan idhi dembi sameey baa la yidhi nin baan la dagaalamo ilka ka riday meesha waa laygu ganaaxay kadibna waa laygu masruufayey waxa lay katiirada iyagaa iga furay guriga iyagaa jebiyey lacagtaan iyagaa siiyey waxaana yidhaahdeen markaad soo hadasho yaanu soomaaliya aanu u imanaynaa oo dee hadhowaad wax nala qaban nimankii markii sidaa loo xidhay waxaa ku jiray nin isbitooro ah ninkii baa loo yeedhay waa loo akhriyay wax la cali caynkaasi u yidhi saar cali wuxuu sheegay in aad tidhi inaad sii dayseen baashaadiisow maxaad ka qabtaa wuxuu yidhi aniga af habashi ma aqaan ingiliishi ma aqaan amaari ma aqaan af soomaalina ma aqaan afartaasoo cali yaqaan anigu midna ma aqaanin af oromaan aqaanaa cali saan u sheekaysan karaaba waa loo yeedhay waa la yeedhay waxaa la yidhi baashaadiis af arami buu yaqaan adna af aramiga ma taqaanin af kaluu yaqaanaana ma jirto sidee u sheekaysatee sheekadan dheer isla gasheen waxaan inoo kala turjuba iminka hadhow annagaa safkaran baashaadiiso waxaanu nahay 2 nin baynu nahay afrikaana 2 nin oo ciidana baynu nahay 2 nin oo nina ciidan Soomaaliyeed yahay nina ciidan Itoobiya yahay baanu nahay waxaynu galay politic and service oo ferditra siyaasad ciidan inaynu diblaasi inaynu samayno ayaanu taragaraynay mishilka ama waa u fula ragga ama waa ka dhicisoobaye waxaan ku leeyahay marka hore saaxiib amba waa calo adeeg iyo calo adeeg waxa ii raacda baashaadiis wuxuu yaqaanaa af xabashiga waan cadaynayaa waxaan ayga baraga baxaabistii aan la xidhnaan jiray iyo ciidanka intaan la soo xidhin haddii uu qoon waayo ana baa sheegay
markii la dharbaaxay loo hanjabay baa layidhi gurgaaraha sita gabaajo idariinta qardaajo karantaha laga gooyo adimada ee la dharbaaxay buu aad baan u aqaanaa ilaahay wuxuu ka yeedhsiiyey milkuraxmaan ahaa waxaan idhaahdaba caynka lacagta ma idinaan siin may siiseen haa soomaaliyaanu kaaga daba imananaa ma tidhaahdeen haa may sii dayseen haa unbaa ilaahay ka yeedhsiiyey show anna naf aan weyn baa ilaahay dee oo noolanaysa unbaa dee looga jeeda disna sabab baa looga dhigayay waa tahay ninkii wuxuu caddeeyey inuu siiye lacagteen 13 nin dabeedna soomaaliya ga daba imanayay kii allaaliya kii la soo daayaba uu ku markhaati furaa migistaa loo geeyey waraaqihii nimankii 13 waa la toogtay anna waa laygu sawira markii lay sawiray laygu sawiray ayaa iyaga xilxiran oo soo jeedka ka xiran oo igu soo horjeeda iyo anna falood laygu faliso waan ka horjeedaa ciidankuna aniga dhabarkaygaa si ku aadaya wax tooganaya show kamaradaa socda markaa waxay igu leeyahay cali ha isla dhaqaajinin fadhi markaa waxaan ku fekeray meeshu waa toogasho nimankayna soo jeed bay xukuma yihiin adna sii jeed baa lagu xukuma markaa yaasiinkaan akhriyayaa oo kursiga baa iska fadhiya ayuu waxaa kay rasaastii oo idhaaftay iyo nimankii xadhiggii goostay markay 13 nin halkii ku geeriyoodeen ayaa lay cali orado gurigaagii gal waxaan wallahi caawara dhaafta waa tahay subaxii waxa soo baxay joornaalkii oo aan ku sawirnahay oo la leeyahay 13 nin ninka cadowga Soomaaliga ayay sii daayeen siyaasada fulxumada lagu toogtay qof wala oo Itoobiya oo falka ku dhawaaqana taasaa haysata wala xaq la'aan waa tahay joornaalkii markay subaxii ay arkeen 3 nin oo isku reer yihiin nimanka badankooda ayaa xanaaqay Kenya galeen dabeedna waxay u tageen shirkadda qurma ka dhaxaysa waxay yiraahdeen waxaanu nahay waa soo galay waxaanu ka soo galay Itoobiya ninka Soomaaliga ah oo adeebada ka leeyahay kuwa jalay been oo 13 nin migista u dilay baanu ka caroonay 3 nin kale la qabatiyay iyagoo sawirkeygii sita ayaa migista loo yimi waxa la cali baabuur ka warra wadiga la maxaabis mahaye sidaad bare wuxuu leeyahay haddaan ragaygii la qiran annagu waa leenaya raggaan hayo migista wuxuu leeyahay Soomaalidu iyaga isku dishay inaan qabtiyo ma jirto joornaalku waa ku sawirnaa migista loo geeyay waxa la yiri waka maxaabista haysa ninka baxsay kamid yahay loo geeyay baa la yiri waa kan cali baabuur ka waran isuga buu yiri wuxuu soo diray niman wuxuu yiri cali u taga wuxuu soo dhiibay dhamaal warqad ah oo ay ku qoran tahay far Soomaali nimankii markay yimaadeen waxay ii dhiibeen guriga horta ma wuxuu yiri cali hadduu cadaan hal madoobay hadduu asaa ala cadeeyo waxa la geeyay meel waa la buufiyay gabagaygiiba tibi baa la iga tiray tayn baa la xiray waxa la geeyay 13 dabaq hotel ah oo maalintan ogaaday tiish kama barta meel baa la yiri gal maqsi yar oo mid dalacay sariirtu u sareysay ee fooqa u sareysay baa la geeyay waxa la yiri wax allaay wuxuu dawladda qabtay way baarka laga siiya walaay waxa cali wadiyo wanti maxal rabtaa manaagaan ku keena ma jaad baan ku keena waxa doonaysa dalbo waxaan sidii war caawara waa toogasho oo waa lagu dilaya haddaba ninka la tooganayo waa tii laga qori jiray habeenka wuxuu doono loo sii tubi jiray loo raaxin jiray mala waba lagu tooganaya waxaan kitaab quraan ay kala jaadna ay kala waa lay keenay hodheelka waxa doonaa ka cunaya waxa lay soo diray markaan shan ku jiray oo kaliin buufisa oo ka dhigaya ku naaxinayana la siiyay suurkiina lay xidhay yaa la yimi shan nin baa yimi oo Itoobiyaan oo golaha ah waxay ii dhiibeen warqadii waxa bal warqada jeex markaan jeexa sawirkii migisteegay sabuudi waa madaxweynihii Itoobiya baa leeyahay bal akhri waraaqdan far Soomaaliya ku daabacan tahay waan akhriyay waa far Soomaali halka waxa ka salaamaya buu yiri madaxweynaha kacaanka Itoobiya migiste Xayla Maryam waa tahay
مجلس حيل مريم باكا سلام يا سلام وحن كوكو سلام يا سلام تأمضا دينة إسلامك سلام كتبو حن كوكو بشاريريا إنه يهي إساق مانتا قرب كبليح إيتوبيا وحا كفر الحصب اللي له نشل صومالي نشل مفتي SM وقامين إياه هبل رجي أردن إساق بضح لها انتي لا joogtay buu magacyada ku wada qoran haddaba waxa aan ku sheegaya waa iga kaftamide hadda taani baxbar xabusheeda maxaan dawladda dagaalamayay buu daaska ku qabay waa iga kaftamay waxaan kugu bishaaradayaa wili maanta inaad ku tusayno tabciyada quruma ka dhaxaysa waxaad yeelaysaa markaa wax arrimaha yaryar lidii ku sameeyay inaanad u sheegin shisheeyaha ku imanaya cadaanka ah waayo afrika ko dhan bay ku xuntaa arrinta inaad qariso waxaad yeelaysaa inaad yeelaysiya in kale marka maray hilib dad siiyeen baa jirtay taas uu leeyahay yaan oran waa la isku qalay kalbadu iga baadhaya uu leeyahay sheeginta uu weeyay soo wuxuu yiri soo dhaariya waa yahay markaan ilaa iga tagay nimanka waxay ii keeneen nin kitaab sita ninku waa iska qoqotiyo wax Soomaaliga waa yaqaan hadaba bool ma maqan markaasuu wuxuu yiri wariyaaha eega sida uu yiri madaxweynihii kacaankii Soomaad garan eega waa ku dhaarinaynaa run mooyee inaad been sheegin dhaaro ma wallahi ba markaasaan no wallahi no baani iyo waa no hoskali markaa kaaf Soomaaliga inuu ka jircsan yahay maasi ma billahi ba aadi may billahi dibu yar qoonsaday ma tawahi ba wira markaasaan tawahi kaasi balay baa de balay bay yalo halka la mooday in la igu dhaariyay ayaa ninkiina iga tagay waxa la soo diray niman tibcida qoma ka dhaxaysa ano halkii ku nool ayuu yahay wala baxa Ethiopiaaki dabad inta suudka i xidhan iska furay marka arkay soo wareegayaan yaa tuutaha iga gashada dabadna sawirka fariista wa iimaadeen haye Ali how are you Ali ya Mr Ali how are you fine iyo faqku ka doonaya la dawaay de waxay ninkii uu aaminsan yahay maxaa ku dhacay ninkii baanu hadalkadin wii dhagalaya baasayahan ma ka hadal badan wax kasta anna ula jeeda ka wata markii dambe nimankii ay yaabeen ayaan galay suuligu shabac buu leeyahay waa kan biyuu raacaan weeyaan shamci suuliga iska fadhiistay dabad albaabka waa fura bil afka maro ku xidhan tahay nimanku waa dhaqaatiir ayaa soo galay markaasii cali hawaari aan faan yar faan yes wuxuu oo ninkuwa soo kamiyeysada mid qaba wuxuu doonayaa ninku anigu aan doonayay in qalbuunkan aan ku noolaa oo aan ku miirsanayo wanaagana ay qalbuun ii tahay qalbuunkuna udgoon yahay in baan anigu la jeedo la ka watanahay nimankii halkii baan isku wareysanay halkii baa dabeedna la yiri ma garanaysaa ragga kula xidhnaa wixii halay waxaan garanayaa baan waa yahay nin intuu baxsaday Soomaaliya qabtay oo markii dambe diyaarad la soo saaray oo markii dambe wax laga qorayay gaari la saaray baan ahayo jahadii way iga khaldantay markaa raggu ku xidhnaa nimankii bigista wax leeyay raggii wixii ragga kani Ali Umaan haye waa rag Soomaali Itoobiya ma aha baan nin walba isku ciidan baan wada garay ragga oo balay la qabta habba qabba yiraahdeen waxaanu ka codsanay haddaan nahay qolada jibcida qorba ka dhaxaysa bal inaad qiyaasto meesha ay ku xidhnaayeen waxaan markii aadiis loo waqaxay diyaaraddu dir raban aanu ka soo degnay bas baan la soo saaray laamiga markii aanu maraynay bay naga duween halkay naga duween hadii dir dhaba leegeeyo waxba qiyaasaya yadaan askariban wadin bay ka xayeen dir dhaba leegeeyay waa soo qadaynay laamigaanu ku soo dhacnay jidkii baan ka duway bartii baan soo hortaagay koob iyo 30 nin baa loogu tagay halkii nimankii markaas 3 bilood baa ka soo baqnay iyo samti nimankii halkaas ku badbaadeen ilaa ay tirigii ya ma raga saga markii hore 946 nin baan godka ku wada galay laakiin markii aan ka tagay
laba boqol iyo xoogaa baan noolaa markaan dambe waxaan u nimi 31 iyo aniga 32 ah waa tahay kadib waxaa la soo qabtay raggii ay jabadu soo qabteen iyo dagaaladu nimanku sidaasaa aanu ku noqonay 250 waana la soo daayay waxaana la keenay xamar markiina la keenay ayaa nasiib daro la yidhi waddada waa lama mari karo qabiil baan loo mari karin oo waa lidee degaya ragii la waqooyi xamar annagoo joogna ayaa waxaa ii timi hooyada ilaahay u naxariistay ku dhimatay waxay igu tiri gabadhii waxa guursaday walaalkaa dumaalay 5 caruur oo leedahay imikana waa fool markii ay gabadhii warkaaga aan dhageysanay ee raadiga ka dhageysanay ee la dhimashaa helo wati aaba ku aasay ayaa gabadhii shoo ku dhaca waa yaraxda waa tahay reerkiilas magaalo baa la helini xoolihii baa la haystaa oo la iska fiican yahay magaalo lama arki karo saantii intaas ay taabatay dabeed waxa ii dhiibtay cajlad waxa ku duuban gabadhii waa soo duubtay markaa xaaskayga ahayd ee imika hadda inaan imi dhageysatay waxa igaga soo baxay hees waa dhegeysan doontaan haddaba markii aan dagaalka u baxayay dhul samaraabi igu timi waxay tii haddaad siin noqon weydo saamax baa tahay waa kadaalig baan laakiin carruurta fogeyn dadaarankaasaan u lahayn dabeedna waxay dumaalay kii iga iraayo walaalkay oon iska bahnahay uma arko markaa anigu wax xumaanaba yadaasi waxay qaadan weyday dee ninkeedii oo dhinto haddana soo noolaaday dee layaal ma noqotay oo aabbahay soo casay iyo cali baa hadlaya dee naxdin ku noqotay cajladii markaan furay ee dhegaystay yaa waxaa igaga soo baxay hees gabadhii soo tirsay waxay tidhi hadhka maalintii iyo inayahow habeennimo hurda kamaladino haasaa weheeniyo wadadaarankii hadalkaadii tidhi baan weli hibaanayaayo haadka lalaayiyo hawadan waraysto wuxuu haatif igu yidhi halbowlaa wadnaa iyo halistay wareento hoygii aakhiruu tegey hawlyaraan ma seexdo halkadigaga tiilba hilbayga go'eeno dadba hadalkii waan dhigay waa tahay haddaba anna waan celiyey jawaabtii waa tahay anna waxaan idhi hadallada irmaaniyo sida geela hawdo ilac meele lagu raray maalintaan hayaankiyo halganaynu qaadnaa holicii rasaastii halbowlaha igooyo hamadaa adduunkiyo marbaan hadal badaayo hogmadow intaan galay ambahara wallay dhigay hawaariyu waa iska waran waa tahay salaada intaasaa markaana kala gaadhay markii dambe waxay igu darayd ee aan imi oo aan isa soo taagay yaa iyadoo laxoox dubaysa ayaa hadalkii maqashay laba nin midna abtu ahay midna adeer yahay baa ay wada cali baa soo hadlaya leeyo soo socda oo warka waa sii hayeen dibadda loo soo wada baxay si wanaagsan baan dadkii u salaamay anoo aan weli fadhiisan yaa hooyaday waxay ugu tii bar inantaadii naaska shaqaysay bal carruurta ka garo markaasaan haddaanay taa ahayn garan maayo waxay tii jidh baa ura wallahi waa kaa gartay intaa markay tidhi yaa inantii waxay tidhi layma yidhaahdaa weeya waxaan la yidhaahdaa ayaan 13 sano aabbala'aan ahaa haddaan saaka aabbahay arkay waa alxamdulilaahi ayaan baana la yidhahdaa inantii ugu hasastay aabbe iyadoo le baan saruu qaaday qaadistaan sidaas saruu ugu qaaday ayaa hooyadoo taagani dhacday dabeed fool bay ahayd labaa ka soo duuleen xadintii hablood oo mataanaa waxaa ka soo baxay war saamaxnaakum iyo saamaxnaakum bari dhulka anaa dhigay baan xabaashii u dareeray dabeed mashaakilkaasaa halkaa haddana kala kulmay ay geeriyootay haddaba inantii baa lahayd ayaan baa la yidhahdaa haweeye lema yidhaahdo ee reerkiiba ka hadhay baa waxay igu tidhi fiidkii aabbow 13 sanona aabbala'aan baan ahay
markaan aabbe helayna hooyaan waay oo marka saddexaad aan xaygabadii guba inuu yahay wakhtiga baas anigu qowayahani haystee wixii waaxu sheegiyo waxyaalaha adduunkuba wax soo jiraaye waxaanay aabbe adna waayalag noqoman ويلانتا أبيضه باشي عبنك ما بحدينو افتي لما يلينو تدخو ما هيامي يحيق تشوقو واتاي رجا يجا حدنا قدك كودة تري وحنو نحين رج اسكو دوبان اسكو ميدا ان اهل كلام اقون انا قبا ولا يا اهل باحين وددت اولي تسمال نبا بان باحين الان كانا كايغا ميل لوgu sheega ka kale uu salaama inkastoo ragii intii la soo baxday sidaan warka helay geeri u batay ama markii dalka yimi ee la kulmay dhibaato iyo dagaal iyo wada burbura amal la uu waayay wixii soo ran dhaafeen badankoodina waa sheebade oo xayraan ku waalay wallahi qaar waa lama jiro bari atuuray oo imka burca jooga waa tahay waxaan leeyahay haddaba dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mudariya barwaba waxaan ku salaamayaa caadka quraanka kariimka waxa kale aan u leeyahay annagu ragga iyagu meel kasta ay joogaaba yala waa salaamayaa wixii nool raggii igala soo baxay xabsiga annagu waxaan ay dad u dhintay wadanka u dhintay Soomaalinimo ninkayga caankii ahaa anigoo caynkiiba sidii dhaawac u ah oo ay aragtaan oo aan ku fadhiyo gaadhi curyaanka dhibtaana soo maray waxaan ahay nin ay dhibtu ku gaadhay wadaninimo oo u dhintay baan anigu ahay markaas si alla ajligeed waxaan qabaa in aan guddo Soomaali weyn aan u dhintay kuwa waana waa ila mid ila socday dhibaatadu Itoobiya soo gaarsiisay halka ayuu dadku iska kaayo wada mid yahay waxaan codsanaynaa in la caawiyo oo dibad la qalqaaliyo oo daal ka dhigo caafimaadka gobolka neerfa ay ugu kacsan oo xididay xiran tukihii iyo dhibaatadii meel ku wadi jiray qof waliba wuxuu tari karo la soo turo alaaka imka gabadhu ugu dhow waxay ugu leedahay lacag 1500 baa imka ugu leedahay oo hadda deyn ah wax mushaaro aan qaataan ma jirto wax kale ma kale iga yimaadaan ma jirto anada curyaankaas ana qof kastaaba waxaanu ka codsanaa Soomaaliya inuu soo xuso hadda waa daragtaan cagahayga waa kuwa ma kici karo gaar curyaankaasaan markaan ka dagala badidaan ku gurgurtaa in waxa isteena demihi waxaan codsanayaa oo Soomaalinimada ka codsanaya in aad iyo aad wax la soo tiro islaamnimada guri ma haysto oo marihi oo gaari ma haysto oo waliba dhakhtarnimo baan u baahanahay caafimaadyeed wixii aan ku tagi lahaa in layla hawl galo waa tahay aniga marka hore lambarkaygu haddaan idiin sheego aad igala soo hadli kartaan waxa weeye 656 1092 laakiin saad ma leh waxaad igala soo hadli kartaan inankayga kiisa oo saad leh lambarkiisu waxa weeye 4232540 kaasa lagu soo hagaajinaya oo saad leh waayo kaygu saad baanu lahayn bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan gurigiisa ku soo boqonnay meel uu degan yahay mujaahid cali baabuur oo ah ninka mujaahidka sheekadiisa imka aan ka soo sheekeeyay wuxuu degan yahay magaalada Burco meel dhowr kiiloomitir u jirta oo meel ayay buu degan yahay dadka islaamka ee muslimiinta ilaahay dartii waxaan uga codsanaynaa in mujaahidka la soo caawiyo dhakhtar buu u baahan yahay wani xanuunsanaya ma kaco labada lugood waa ka curiyaan mar walba uu jiifaa dhakhtar buu u baahan yahay gabadh xaafadooda oo lacag badan ka amaahday deyn ku lahayna way jirtaa sida uu idin sheegay oo 1500 gaaraysa ilaahay dartii markaa aynu soo caawino walaalaha islaamka ah saan idin sheegay cali ninka xanuunsanaya guriga jiifa xitaa imka guriga aan joogno oo saacad ay imka koodii markay meelaha marayso duhurnimo guriga xitaa biyo ma yeelaan booyadii meel ay soo marto booyadii ma soo gaarayso biyo la'aanta wad garanaysaa wad dareemi karaysaa qof xanuunsanaya oo biyihii xitaa aanay soo gaari karaynin marka hawshan ka cali aad u culus tahay walaalaha aad ninka haw soo caawiyeen
dhakhtar buu u baahan yahay deenkaa in laga bixiyo u baahan yahay naftiisiibuu xitaa u baahan yahay wuxuu dawooyin u siisto marka ilaahay dartii aanu soo caawino walaalaha islaamka meel kasta aad joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan u dirayaa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxaana aqoonsatay jimciyadda la yidhaahdo ACRC iyadaa naga bixin jirtay intii dambe ilaa ID3gii masaariifta yagaana markii dambe la kala bedeshay ahaa gaadiidkana laku soo qaaday waxayna siiyeen kaadh sidaan u kala horreynay naloo kala horqabtay ayaa kaadharka naloo siiyey anugu ninka shanaad baan ahaa lambarka iga yaala xagga ee aqoonsan tahay waxa weeye 4 0 baa horreeyo xaggana ninka shanaad baan imkanaysaa marka 4 kun markay gaadhaan yaa xaggan u marayaa siiroga kale ها لمبر كوا أفر سيرو يا 5 نكا وهريا أنا وحوي أفر سيرو يا 1 نكا لبعض أفر سيرو يا 2 نكا صدحوا أفر سيرو يا 3 أنا ومركا وحنا هاي أفر سيرو يا 5 سيدا ساكان كيجا لمبر كا لقوا أنقصنا يا وحنا ها نكى بحسن كده للسوق من كده أي كتاب البادين ولو يجوا والسلام يا سلام كدب waxaan leeyahay curyaanimadii waxa ka sii dambeysay sida tar ahay waxna aan hayso in jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay soo caawiso caafimaad haday tahay iyo waxtar haday tahayba Mr Boris baa naga ahaa ninka la yiraahdo wakiil naga ahaa oo loo fadhiyo heer taana waxa leeyahay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa sidii nagu haysay waa inay caawimo wanaagsan ii soo dirtaa iyo waxtar annagoo dalkiyo burburinimi annagiyo deebar wixii aanu haysanay hanti ama dumar aha ama diyo aha bada ay yadoon dhaafay aanu wadanka nimi kadibna ragi wax waashay iyo wax busaaradii kow ka siisayba wax yar baa ku joognaa ku nool waxa kale oo ka codsanayaa dadka ama qurbaha jooga ama dalka ha jooga dhageysanaya walaalaha Soomaaliyeed aqoonsiga sidaas jimciyadu aqoonsan tahay inay sii fidiyaan oo gaarsiiyaan فيديو جراسي فافيان أو واحد يكون داري كرانا وكوريان على نفس وجميع هاي وان حلابة واحدة هل كاس إلى مرسى نعسوكم يسجن نبرد قرصوني معاني قاديني يقر بين الصدر نبرد ما وداقي sidaa uu idin sheegay cali lambarka aad ugu soo hagaajinaysaan saadka waa inankiisa magaciisa idin soo baxayaana waxa weeye Axmed Cali Ibrahim Muuse lambarkiisuna uu yahay 00252634232540 shaashadan aan ku soo qoraynaa haddii Ilaahay ka dhigo Ilaahay dartii soo caawiya ninka xanuunsanaya odayga ah ee meesha cidlada jiifa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu نعوقبوي من غي برواقي فبلغ نقادي نضشبا إلوبي